munaasabad ballaaran oo lagu taageerayo murashaxa xisbiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UMP ahna madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa lagu qabtay hotel Sheraton ee magaalada Djibouti. Munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen ururka ay ku mideysan yihiin urur weynaha ciidanka Jandarmaariga waxaana intii ay munaasabadani socotay lagu soo bandhigay heeso wadani ah oo ka hadlaya dadaaladii iyo higsigii dheeraa iyo guulihii uu soo hooyay xisbiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UMP ee uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle. حلال ما يقال والحمباري كرو الكوماديا والحمباري كرو الكوماديا هللليا 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 aweysinka munaasabadan iyo dhageysiga heesaha wadaniga ah kadib waxa ugu horeey munaasabadaasi daahfuray oo ka hadlay gudoomiyaha ololaha doorashooyinka ee xisbiga aqlabiyadda madaxtooyada UMP mudane Axmed Cali Barre isla markaasna uga mahadceliyay haweenweynaha ciidanka Jandarmaariga munaasabadan ballaaran ay ku maamuusayaan isla markaasna ay ku taageerayaan xisbiga aqlabiyadda madaxtooyada ee uu garwadeenka u yahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. waqtiyada soo socda hayna gaarsiiyo inta noo hadhay kolka waxaan niga codsanaynaa dadweynaha halkan isugu yimiday inaad dadaal gashiin kaarashii wixii hadhay aad qaadatiin dadaalka qof walba meeshiisa uu ka galo sidaa awgeed aad iyo aad baan idinku mahadinaynaa. dalka kani dadaal badan baa loo soo galay si uu halkan u soo gaaro dadaalkaasi dadaal yar ma ahayn. maalintii madaxweynuhu dalkeenna hoggaanka uu qabtay waxaad ogsoonaydeen kooronuhu dalka jirin mishaaradu inay 5 bilood rataar ahayd wixii oo dhan waa laga gudbay waxaa loo tallaabsaday dalku in uu hore u socdo uu dhiso kaabayaasha dhaqaale ay ka mid yihiin doorasho. ugu dambeyntii waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah haweenweynaha ciidanka Jandarmaariga ee dalkan Djibouti ee munaasabadan soo agaasimay. waxa miyaanan anagu ahayn kuwa iyagu mahad cesha haddaan dumar nahay miyay tahay soo sidaa ma waxaan ka gudubnay waxyaalo badan oo markaan mid sheego xogaha rag ma dareemayaan laakiin dumar oo iniga dareemi doona allah ilaahay maxaan ka gudubnay baad hoosta ka oran doontaa. waxa u horeysa yasiraadii iyo gabadhani dugsi waxbarasho tagi mayso kol hadaad aabaadirasaanskoon akhrin taqaanid dee waxba male waa adiga wax dhigtay bas naga daa haddii la odhan jiray madaxweynaha jamhuuriyadda marwada koowaad ay garab hayso hiil bay noo noqdeen oo halkii waan ka soo kocnay docdii iyadoo ahayd dumarku dee waxba male. maantana ninka ay gabadh u dhalato waxa uu yidhaahdaa alxamdulilaah miyayna ahayn ma ku dirsanay taa. midda labaad waxaa maanta madaxweynaha jamhuuriyadda gaar ahaan marwada koowaad ee dalka ay ku xusnaan doontaa taariikhdana ay maragmadoon ay tahay in maanta qaaradda Afrika iyo wadannada iyagu saxaraha ka hooseeya la yiraahdo in maanta dalkeenu hormood u yahay tusaalena u yahay khudbadahana lagu darsado arrintii iyadu baaragoystii aanu ka gudubnay dhammaanteedba كارفوتاجي أنا جوان هاي سنة
diyaar buu noo yahay aabba ismaaciilo waxaan kuu ballan qaadaynaa haddii rabbigu qadaro hooyadii shandaaranka iyo ubadkeegii oo gacmaha saas ku haysta bisha 9 waan ku siinaa codkii waana kuugu ridaynaa waana ku garab joognaa waan ku taageersannahay qurux badan maanta waxa u soo qabaqaabisan xafadan eed u muujinaysin in madaxweynihiina aad garab joogtiin haween hiliyo hor aad garab joogtiin maasha Allah waan leenahay sida ay si kasi xoojisana insha Allah oo si badan leenahay iideelkeen baa haduu alla yiraahdo bisha 9 galab dheer ba ku kala carabi doonaa waxaan leenahay iyoshe hanoolaado imirihiisu ajiro joog baan leenahay haweenka reeshan daaranayo ninka maxaa leediin munaasabadan ayaa qayb ka munaasabada muddooyinkii u dambeysay lagu taageerayay xisbiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UMP ee uu garwadeenka u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele Najiib Cabdiwali Cabdixiis telefishinka caalamiga ee badda cas 24 Djibouti.